السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا كسو دوادا شانك أم النجيب ولاشين كريمة أيا ليفة عاو برنامج كان كهالينا وحوية برنامج تحاناء oo ah ka waran noloshaada waxa qurbaha ka qabsaday waxa hooyooyinka Soomaaliyeed haysta waxyaalaha Karima raayigaaga walaale caaw su'aal baan ku su'aaleynaa sheekadani waa leef hameen walba ah oo barnaamijka sabti iyo axad waxaan ahayn oo soo deynayna aniga iyo gabadha walaashaya qof kasta ciwaankayaga uu ka soo qayb gali karaa barnaamijkaas waa barnaamij shan cisho oo taxanaa ah waxaa laga daawanayaa labada YouTube oo ah Karima ku dhawaaq walaal waan idin salaamaya marka ugu horeysa munaay walaashay qorxo ku salaamaya saxaabtaadana waan salaamaya wajhanka umalici iyo Karima Sweet labada kan ka daawado hadii ay kaliso sidoo kale insha Allah wuu jiri doonaa munaay mara qoreen soo walaal kale yara qabanaya haye ku horey Karima munaay anigu xarabaa ma garanaysaa laakiin dadka ka shaqeeya qorbaasada dadka mooyaane iiba hooyooyinka inta baa haysta in wax raba laba muddo inaan ka hadla caawa ilaahay ka dhigo waxa koobaad hooyo waxa jirta ay ninkeedu ku filayahay ma garanaysaa iyadoo dhaqanaysa ninkeeda dibadii oo dhan ugu filaaday iyadana ma garanaysaa inuu ugu filaatay oo taasoo kale boqolkiiba 90 oo baal helaa laakiin dadka inta badan ku dhibaataysan qurbaha ay ma garanaysaa hooyada gabar waxaad arkaysaa iyadoo dhowr ciyaal leh ama saddex lahaato ama afar lahaato oo maanta oo dhan waxaa laga yaabaa ninkiina jibista qoyan soo saartay ayaa batoorsada ka taagantahay ama booskaada ka taagantahay meel walba iyadii ilmihii taagan ee kullu qiimiyo waxa kula silacayso la kacafayso haddana waa la qabaa sax Soomaalida inta loo qiimo waxa loo jiray silacnimo صح وهيجر ألو عارفين هاي وبدأ سكر واحد بس لها ويجي بس يعرفون ويجي هاي رجع واحد رئيس قرن وتقفل وكل شيء أول شيء مسكين كرو أما دلوقتي عقبتي بضحك عني صح قبل واحد ترينا حتى ما عرفنا شيء ما عرفنا وانسين على كذا بقول هاي وقفت هذيك قصارين لك قاعدين وينك عيلانك صح marka waxaan oran lahaa walaalo qofka bini'aadamku waa inuu tustaa hooyadu waa inay tustaa maxay awlaadeeda hadduu aabuu qabo hooyada iyadaa mas'uuliyadda qaadi karta aabbihi hooyaba iyadaa okay marka barnaamijkan waxaan uga jeednaa ila tali walaal ya rag iyo dumar wixii talo u baahan waa la talinaynaa همين والبا وسوقليا عن سبتي يا حرهين وحنا كسوقليا لبضع شنن أيو كسوقليا همين بشنن باكلا سعونيسان ويدا تلادا وباهن تلانو سينينا أباها تلادا وباهن تلانو سينينا وين وقتيغا هيسكاقا عيارينا كفايديستا لبضع شنن كسوعو صح qaban karay waan u qabanaya sababta aan dadku markaas waa kamid ah laakiin qofku inuu go'aan yeesho oo noloshiisa isku filaado ayaa wanaagsan oo meel ka soo baxdo aad ku hadan naf lahayn ma hada inaad tiraahdo nin waa la helaa wuxuu sheegaya baskeer walaalo hadaba jirto joogto waa inaad ilmahaaga ma garanaysaa ka fikirtaa mustaqbalkooda noloshooda waa inaad ka fikirtaa haddii aad maanta ninkan ku mashquulsho noloshii gurigaaga iloodo naftaada iloodo ilmihii iloodo si aad tiraahdo ninba ku fikiraya ilmihiibaa meesha ka baxaaya صح لكن ولا فكرة من بالفريستان كل هذا لا ماشي سيدو دبا مستحضر هذا الباك كل يا لقاطات حاق كلها بون حاق كلها وناسني كان ولا تساك صورين مالها وإنا ما هذا دبا قوتها وإنا ضدو بالما هذا مقرن ساي نقطة فيلان ولبد نعم مقرن ساي كا نقطة قفت حق فري مي وحلا له بعين هاي أوكي رأيك أنا كهالينو وحوي qof kasta sidoo u qaadan karo isaga u taala anna qofna ku dhaliili meeno qofna ku maagmeeno waa ila tali qofkii talo u baahan hooyada talada u baahan aabaha talada u baahan waxyaalahaas oo dhan waa ila tali barnaamijkan waxa la dhahaa ila tali waa la talineena wixii ra'yigeega ah ayaanu siineena ku bogaadinayna
ku soo dhaweynaynaa qof kastana fikradiisa wuu ka soo dhiiban karaa labada telefoon oo nalaga soo wici karana shaashadan ku soo qoraynaa labada kinaal ayuu marba mid ka soo gelaya habeenba mid buu ka soo gelaya marka ila tali baa la barnaamijka marka hooyada quruxda badan oo wanaagsan waa la talinaynaa hooyada barbareenku yara haystana yurub baa la joogaa maadaama yurub iyo maraykan lagu soo dhammaaday maadaama hooyooyinka ku soo dhammaadeen maadaama hooyooyin badan iska rafaadsan yihiin waa la talinaynaa ila tali baa la yidhahdaa hooyada single motherka waa la talinaynaa hooyada aabbaha iyo hooyada gabadh waxaad moodaa inay haddii ninkii ka tagnay aan la inay nolosheeda u dhamaatay inay mustaqbalkeeda halkaa ugu dhamaaday walaala shalay waad qurux badnayd shalay waxaad ahayd qof taagan waxaad qof nolosheeda dhaysanaysa ninka bini'aadam wuxuu kusoo biiray laba qof waxaad israaca ah haddii aad isfahmi weydin waddada kala mar sidii shalay aad u qurux badnayd si ka daran u qurux badno ilmahaagii noqo qof ku filan qof hami iyo mustaqbal lix noqo oo isku filan oo go-aan leh runtii bee kuu sheegaan dadka go-aan kalena aad jecelahay dadka intiis wanaagsan waxaan leenahay ilaahay isku barakeeyo laakiin inta badan boqolkiiba konton waxaa jira dumar badan oo ku dhibaataysan oo silacaya oo rugooda la guuleysanayaan waxaad arkaysa gabadh koodhan inta tusanaysa ma garanayo meesha lacagta laga qaado amba waxaa looga rabaa meelahan inaad soo tusto sabab sidee u dhacday okay waxyaalahaasoo dhan waxyaabahaasoo dhan way nigala talinaynaa qof waxa la fikradda adiga kaa maqan walaalkaabuu ku jira marka fikradda way nigala talinaynaa midda labaad waxaanu kaloo soo jeedinaynaa hameen walba wuxuu ka soo gelayaa 8 hameennimo